السلام عليكم ورحمة الله. وعبد الرشيد علي الشيخ محمد وهي عبد الرشيد علي الشيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأمركي لبعض وبلنقات كيجيها رمضان كا inta cibaado lagu jiro inaan warka iska daayo, laakiin way soo dayatay ayada soo raasatay maantana maalinkii horena arrin laga maarmaan ah oo warkaas taagneyd oo haddaan kadib dhaco aan macquul ahayn ayaan u soo galay. maantana waxaan rabaa inaan ka hadlo madaxweynaha galmudug xaaf oo yiri mareexaan qabiilka la yiraahdo oo dega galgaduud iyo gedo ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hoos kala hadlayaayo inuu dhibaateeyo raba marka dhibaatada ha iska qabteen. wuxuu kaloo yiri madaxtooyada la isaga daadanaya 90-kooda lagu noqonaya. wuxuu kaloo yiri madaxweyne Farmaajo wuxuu yiri hadii la siiyo galmudug hub mareexaan iyo waxa la weeraraya iyo Puntland. qodobadaas waxaan rabaa inaan ka hadlo, waxaan u kalifayaa كو وغاسك مراحان وغاس عبد الساق علي ميرا او مراحان كسده بري اما قلقدود ولالكيس بانا هاي او قبيلك اللي مقع دبهيو انغا وغاسي واه marka taas waa qodobka ugu xambaaraya. qodobka labaad, su'aashan dadan ahal u ahayn oo aqoonin inay madaxweyne xaaf u jawaabaano ay meel daran kala dhacaan hadalka oo Ramadaan baa lagu jiraa, ehel baa la yahay, muslim baa la yahay, Soomaali baa la yahay, daris baa la yahay, dhalinyaro la yahay, abtiyo adeer iyo awooyo xiid iyo sodog iyo seedi baa la yahay. hadalla aan munaasab ahayn oo odagaas u qalmin in tolkay kula hadlo mareexaan kula hadlana inaan hor istaago waa u soo galay. odaga jawaabtiisa ku haboon inaan siiyana waa u soo galay. saddexdaas qodob baa ugu muhiimsan. marka ugu horeysa ciwaanku waxa weeye Soomaalida 1991 iyo Soomaalida 2019 waa kala duwan yihiin. way kala duwan yihiin. waxa weeye jawaabta ugu horeysa horta aan siinay madaxweyne xaaf waxa weeye adeer xaafow Soomaalida 1991 fakarkeeda iyo Soomaalida maanta 2019 fakarkeedu wuu kala duwan yahay. cirkii dhulku isku jira. waa jawaabtaada koowaad weey. jawaabta labaad, annaga mareexaan sadana la yiraahdaa Soomaalida uu madaxweynaha u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baan ka midna. waxaan kaga duwanahay male oo gaar ah noo soo xijiso Maxamed Cabdullaahi Farmaajo noo soo xijiso. mareexaanka mataqaana bari oo mudugna ugaas cabsa cali mirani walaalkayba ugaas ah oo hadda codkiisa ku hadlaya. mareexaanka gadana ugaas maxamed ugaas cumar ugaas xirsiba ugaas ah. waxa weeye marka annagu shacabka Soomaaliya ayaan dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan ula simanahay. waxa gaar noo soo xijiso adeer ma jirto. arintaasna waa qalad adiga ku gaar oo adigu samaysatay weey. qodobka labaad, adiga xaaf haddaad ka dhacaysid madaxweynaha inta qori ah ka basolo qaadatid aday ku taala. laakiin annagu kuma dhahayno habar giirtaad carab ku dhufatay oo tiri habartu inay istaagtaan la diidan yahay. annagu ku dhihi mayno habar giirna hadda ma taqaan lama hadlayno. adiga xaaf baan kula hadlaynaa. naga habar giirna lama hadlin, adiga nala hadlay xaaf. waxaan ku leenahay adoo keliga ah oo xaafa qoriyo basolo inta qaatid madaxtooyada weerar aday ku taalay askarta koofi guudo oo meesha wardiyaaka ana wax naga qusay male. habar giirna wax ka qusay male. qodobka saddexaad waxaa tiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yiri hadii galmudug la siiyo hub waxay weeraraysaa Puntland iyo mataqaana mareexaan sida bari oo cawdaq caasimadda bay weeraraysaa.
oo aad qarinayso habar gidir baa weeraraysa aad qarinayso wey horta galmudug waa lagu wada jiraayo 11 lafood oo Soomaaliya ku jira habar gidir iyo mareexaan kaliya kuma jiraan Puntlandina waa dadkaas halkaas degan oo ayaguna nasabkooda daaroodka yahay laakiin barnaamijka aad ka hadlayso barnaamij sagaashankoodii jiray weeye laakiin hadda wax jira ma oo hadda habar gidir inta qoryo qaadata ama dawladda hasiisa ama ay soo gateen Puntland weeraraysa ama cawdaq iyo mareexaan sida bari weeraraysa ma jirto warkaasna war adiga ku gaara weeye war habar gidir kula qabtana maahan war habar gidir hadda anagu aan ka sugaynana maahan habar gidirna xoogaal baan u nahay waana dhaleen waa dhalnay abtiyo awowi isriye hel baan isku nahay waxay caawa ku bariyaan waa ka warqabnaa marka mas'aladaas hadda 2019 ma jirto habar gidirna kama jirto mareexaanna kama jirto Puntlandina kama jirto qabiil kale oo Soomaaliyeed kama jirto waxaad ka hadlayso wax 90 laga soo gudbay way dibna loogu noqon maayo waxaa kuu soo haray mareexaankii ina farmaajo waa kuu kala saaray inay shuqul isku lahayn ninkaasna madaxweyne Soomaali weeye anaguna qabiilkaas geda iyo degooma taqaan galguduud ayaa nahay qodobkii labaad oo madaxtooyadan ka daadanayana waan kuu sheegay kii labaad oo saddexaad oo ahaa haddii qoryana la siiyo anaga habar giira waxaan weeraraynaa Puntland iyo meeshii la yiraahdo mareexaan sida bari taasna waa kaaga jawaab waxaan kuu gelayaa farqiga u dhaxeeya 91 iyo 2019 horta kow maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed se baramaah waxaa la rabaa markaad nin weyn tahay oo madaxaagu cadaaday markaad hadlaysid waxaa la rabaa wax cilmiya oo caqliya oo waaqici ah oo sida qoraxda u muuqan inaad ku hadashid maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maxamed siyaad bare waa laba nooc kala duwan isku backgroundna maahan isku da'na maahan Soomaaliya kursigeedan isku qaab kuma imaan nin jaran militariya inqilaab ku qabsaday meesha aan dhiig ku daadan 21 sano madaxweyne soo ahaa ayuu ahaa maxaa cabdullaahi farmaaso nin shahaado waxbarasho oo maadi ah oo Mareykan wata cimrigiisa inta badnaa ku nool America doorasho ku yimid kilka shanaad Garissa Djibouti Soomaaliya mataqaan Somaliland iyo inta kale oo Soomaaliya looga banaan baxay guri kasta looga banaan baxay doorasho iyo rabitaan lagu doortay way maxamed cabdullaahi farmaajo nin inqilaab ku yimidna maahan nin jaran ahaana maahan nin askari ahaana maahan nin meesha xoog ku qabsaday oo cid gidaar uga dhacayna maahan oo madaxweyne inta weeraray gidaarka uga dhacay meesha kursi xoog ugu fariistay oo woo loorana maahan waa ninkaas caleemaha qoyan loo ruxay ilaa haddana loo ruxayo way waxaa kaloo kuu soo haray Mareykanka maxamed siyaad bare xukunkiisii jabhadaha inta ku kiciyay asagii reer galbeedka asagoo hogaaminayo oo SDF furay amxaarada aada yiri SNM furay amxaarada aada yiri USC furay adigu aad ka mid ahayd amxaarada aada yiri SBM furay gabiyo in Umar Jaas wadaan amxaar aada yiri kadibna xamar ku qabtay Robert Ogle dagaalka uu hogaaminayay anuguna miirooyinka cismaan caata u dhiga xamar aan furi jiray anigaan Cabdirashaaq Cali Mir hadda ku jawaabahay waqtigaas isaga waxay 91 siyaasadii markii way isbedeshay dhinaca kale noqotay oo hadda Mareykankii asagu Robert Ogle qarxa la dhiga xamar lahaa oo cismaan caata u soo dhiibayay asagiiba hadda qarxiyada xamar baarahayo oo ogolay in xamar qarx la dhigo isagiiba xaalna ku fadhiya xalane awal Washington ba ya Bush amar ka soo bixinay Bushkii weynaa George W Bush laakiin hadda waxay ku fadhiyaan xalanayba ku fadhiyaan xamar xalanay haystaanba maba fogaba telefoon ba ma walkaas ay ku imaanayaan qarax in xamar la dhigana ma ogola in la qarxiyana ma ogola waa kuwan hadda daroonka al-shabaab ku ugaarsanaya waa waxyaalaha waaqiciga ah oo markaad hadlaysay macnaha aad gaftay oo ku seegay way baan dib ku xasuusinaya oo hadda maanta xamar qarxa dhigto Amerikaanka baarayo awal ayaga dhigi laakiin hadda ayaga baaraya waxay la mid yihiin maxamed cabdullaahi farmaajo haddii maxamed siyaad bare
jabahaduhu ay ku haysteen adigu aad ka mid ahayd meesha wuxuu ku qabsaday xukun military xabad buu ku qabsaday xabad baan kaga ridaynaa wayba idii hirgasho waad ka rideen ameerikaankuna waa idinku raacsanaa maxamed cabdulaahi farmaajona dalka maba jooginba waagaas askarina maahayn qorna ma wadin jabhadna maahayn laakiin hadda booskii maxamed sabra waxaa fadhiya cabdilqaadir salaad xasan oo soomaaliya inta heshiisay oo qabiilkii laga tegey iyo wax hadda adu ka hadlaysay sagaashankooda laga tegey labadii ka jabuuti lagu heshiiyey qoryihii layska dhigay haddana cabdullaahi yuusuf bedelay haddana shariif sheekh axmed bedelay haddana xasan sheekh maxamuud bedelay haddana maanta farmaajo fadhiyo oo intaa jaranjaro madaxweyne soo mareen wixii laga hadlaya ahayd waxaad hadda ka hadlayso in la joojiyo oo ahaa sagaashankoodii baa dib loogu noqonayo madaxweynaha filla soomaaliya loogu daadanayo qabiil baa qoryo qaadan oo qabiil kale weerarin wixii jabuuti lagu soo xiray khadkaad ka hadlaysid jabuuti lagu soo xiray cabdulqaasim salaad xasan baa loo doortay arrintaas oo lagu soo afjaray in laga gudbo waaga 2000 baa laga gudbay 19 sano ka hor baa laga gudbo waxa ka hadlaysid hadda marka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo barnaamij xasan cali khayre oo lagu soo doortay doorasho shacab oo waliba ilaa 60kii ilaa hadda aan hadlaya aysan loo dooran saas oo kale madaxweyne loo doortay uusan jirin Soomaaliya inta anu aan ogahay ayaa shacabku wali sidii u rabaa say u doorteen bay u rabaan wali xukunkana 2 sano haya way ka hoos baxday xukunka maxamed sabra waxyaalihii lagu nacay waxa kamid ah 21 sano kursi ku fadhiyo odaga adeerka Allah u naxariiste laakiin maxamed abdullaahi farsan 2 sano fadhiyo hadda 2 sano كو محمد سيبري وحي ريدي قبيل ما هينا وحي هاين رير قلبات قبيل كل حمل مي وهوبك يلعاتي يو هوغامينتا يا أمرك السينية أدو مركز شبهدي يو اس سي بات كتير سنايد قريقاقا يو رساس تادا يا لعاق تادا يا شدال كاقا يا أمرك تكون شقينيسو أمريكان كي كسيني يبا هدا كاسور جيدا مركز حسابتا سي قلدن بات وآخر حسابتا si sax marka u akhri adeer waa soo jeeday hasiyeelina daana kugu ma yara aqlina kugu ma yara marka waa inaad fahantaa waxa ku hor yaala waaqici ku hor yaala weey xataa ameerikaanku maaha kii December 92 soo galay oo lagu soo bush ku soo ma uu ka duwan yahay kuwaas meesha nabadgeliye u yimaadeen iyo mataqaanaa dad gaashaysan in raashin la siiyo kuwan meesha xoog iyo xabad bay ku haystaan hadda hal xabba xamar ka rido diyaaradahooda iyo tiknikadooda iyo ciidankooda special force ka ba ku weeraray marka cagta u dhig adeer cagta u dhig waxaadan aqoon baad ka hadashay oo cilmigeeda lahayn adan garanay waxaadan aqoon u lahayn waa daaweyn tahay aqlina kugu ma yara laakiin barnaamij adiga adan aqoonin oo cilmi adan baran baad ka hadashay sababtoo dad aqoon lahayd geopolitical waxa la dad aqoon lahayd geopolitical dad aqoon lahayd ayadoo xalna lagu fadhiyo ameerikaankiina ma taqaana dimuqraadiyadu uu sheegi jiray xamar keensaday ilaa cabdilqaasim soo watay ilaa cabdullaahi soo watay ilaa shariif shaxsan soo watay shariif axmed soo watay ilaa xasan maxamed soo watay ilaa maxamed farma soo watay bal hadda waxa la ameerikaan baan weeray anoo xaafo kaliya oo qori ah kay basalo watay adoo kaliya marka inaadan geopolitical iyo ma taqaana aadan siyaasadaha caalamku iyo adduunku meeshu maray inaadan wax badan kala socon bay cadeynaysaa hadalkaaga maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu ku yiri diagnosis baa lagu sameeyey maxaan ku iraahdaa daawadiina wuu diiday adiguba backgroundkiisii America iyo markuu joogay Buffalo iyo meel uu ka shaqayn jiray inta soo xogsato maahmaha noocaas oo kala adba u samaysan kartay maxaa annaga noo ka keenay mareexaan sida maxaa ku keenay nin baa kula hadlay adna madaxweynaha galmudug baa taasay madaxweynaha Soomaaliya weey diagnosis iyo medicine buu kugu maahmahay adiguna ugu maahmaah kale America iyo backgroundkiisa inta raasatay maxaad u kala garan weeyday maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo mareexaan sida oo daga galgaduud iyo ma taqaan gado maxaa isku qaldaysaa adeer waxaa kuu soo haray Soomaalidu 91dii xukunka isbedel inuu ka dhaca Soomaaliya intooda badan waa aaminsanaayeen laakiin wixii dhacay
oo umula dooxa ahaa oo saqiira qawraca ahaa oo waayeel dilida ahaa dadku ma rabin laakiin jabhadihii baa keenay aan su-aal hadda ku weydiiya xaafow adeer jabhadihii maxay qabteen afarta ahaa maxamed siyaad barre ka soo qaad maalinkii la riday wixii ka horreeyey waddanku siduu ahaa barwaaqa sooran ka fiican miyay geliyeen oo geeyeen mise xabadday bilaabeen iyo hooggii iyo bi'ii iyo dilkii iyo dhicii iyo kufsigii iyo billiqaysigii iyo xaaraantii ayay weli wadaan ilaa saacaddan oo laga furfuri la'ya oo marka intaas ma wax lagu faanaa ma wax loo shallaayaa ma waxa la yidhaahdo sagaashan iyo kowda dib loogu noqonba mise waa wax laga acuudubilaysto ilaahay looga toobad keeno qofkii addishana magtiisii la siiyo qofkaad hantidiisa qaatay loo celiyo islaam baa la yahay muslim baa ta adiga xaafa aakhara ilaahay ku xisaabin qabriga markaad gashay su-aasha kuu bilaabanaysaa dhiig muslim ma wax lagu faanaa ma wax in lagu soo noqdo ilaahay laga barya ma wax lagu goodiyaa waan ku soo noqonaya ma wax mataqaana hadda loo hub urursadaa ma wax qof caqli lahoo miyir qabo cimri jooga madaxiisa caddaaday hadda ku baaqa 29 sano baan haynaa jabhado diirata ah oo dirindiir ah oo ayax ah oo aan dhaafaynin wax nool iyo geed iyo bir iyo alwaax iyo biyo iyo ciid iyo dhuxul midna dhaafayn marka ma waxaa kula qurux badnaatay 29 sano in waxa lagu sii jiro intii la joojin lahaa rabbi loo toobad keeni lahaa wadadii rasuulka la raaci lahaa wadadii saxaabada la raaci lahaa meeshu hadda adeer waxay taagan tahay qof kastoo Soomaaliya waaqiciga maanta uu taagan yahay waxa weeye ilaahu rabbiyow Soomaalida qalbigeeda burcad isku maray ilaahayow qoryahana la ka ururiyo ilaahayow mataqaana wadanka shidaal laga soo saaro ilaahayow rabbiyow maxaan ku rahdaa qof kasta qofkii uu dambi ka galay uu u toobad keeno wixiisi u soo celiyo hadduu qof kadib la magtiisii siiyo hadduu hanti ka u celiyo gacmaha la isqabsado jaamacadii la dhiso masaajidii la dhiso la isku soo noqdo adduunyada caalamka lala tartamo China oo ah 2.22 million ayaa waxay rabtaa inay Taiwan ku darsato oo leedahay annaga ay naga maqan tahay oo Mareykan iyo Ingiriis iyo reer Yurub naga qaatay 500 sano ka hor 300 sano ka hor inay soo ceshana rabnaa bay leeyihiin North Korea waxay rabtaa 126 meel baa lagu oday 40 meel baa lagu oday inay isku timaado oo hadda qayb nuclear leedahay qaybtii kalena ay rabtaa inay ku biirto Yurub hadda 28 wadan maraysa oo inta kale isku imaanayaan oo rabtaa inay 40 gaarto Ruushka iyo China America la tartanto caalamkii tartan waxa lagu jiraa in nuclear la sameeyo nin walba ninka kale uu la sinaado oo la adoonsanin meesha caalamku 2019 halka marayo oo Iran hadda nuclear samaysatay oo maxaan ku raahdaa nimanka la yiraahdo Ethiopia iyo Masari hadda nuclear Ruushka u sameeyo oo Syria nuclear Ruushka u sameeyo oo qof walba ku jira caalamka in asaga la adoonsana asagoo wadan ah oo madax banaan inuu adduunyada la tartamo baadeer xaaf tartankaaga wuxuu marahayaa anagoo habar gidir baa mareexaan inaan weerarno farmaajo ka baqahaya ama anagoo habar gidir aan Puntland weerarna farmaajo ka baqahaya baa taaganta oo aniga Cabdirashiid Cali Miraab leeyahay ka cilinayaa oo waxa la leeyahay odaga Cabdirashiid Cali Miraab inuu diluu raba hadii hub la siiyo ilaan adigiiba isku marqaati kacaya adigiiba hadda waxa leedahay hadda dhihi lahayn midaan farmaajo horta inuu yiri anigu ma aaminsani oo farmaajo saas uma hadlo farmaajo qofku markuu la hadlayo diagnosis iyo daawooyin waxa sarbaabta ugu mahmaa laakiin sida hadda adigu leedahay farmaajo wuxuu leeyahay hadii galmudug dhinaca habargii hub la siiyo mareexaan iyo waxay weerarayaan iyo Puntland horta warka kugu ma raacsin war farmaajana ma madaxweynuhu saa uma hadlo laakiin adiga isduqay laftiga contradiction isku sameeyo waxaad bataagan tahay waxa laga daadanayaa madaxtooyada sida saashku laga daadanaya marka da'daada warkaas uma qalmo aqligaaga uma qalmo xilka hadda aad Puntland aad Soomaaliya aad u hayso galmudug aad u hayso aniga kula hadlay kamid caawaq aan ka imid oo hadda ugaaska caawaq aniga walaalkii u yahay ugaas Cabdi Cali Mare adeer waxaan madaxweyne noogu ahayd oo kugu dooranay oo aan ka sugaynay ma haddaad adigu madaxweynaha iyo barnaamijka Soomaaliya maxaa Abdullaahi Farmaajo Xasan Cali Khayr adigu siyaasad isaga hortimaadeen hadda niman kuwa siyaasad bay kula hadlayaan
political language bay kugula hadlayaan medicine bay kugu mahmaahayaan hadda adiga laftaagu barnaamij kale ugu mahmaaho laakiin annaga oo mataqaana madaxweyne noo ahayd oo haddana inta dadku yahay aan nahay inaad annaga inta ka soo gudubto ninkaas madaxweynaha ahaa oo shaqada isku haystay annaga noo soo gudubto oo na tiraahdo mareexaan baa ina farmaajo Soomaaliya ku dirahayaa in farmaajo iska qabta in farmaajo nasabkiisu waa in mareexaana waa in reer diiniya waa in reer dalala laakiin Soomaaliya madaxweyne u yahay anagu markuu xilka ka dago oo uu noo yimaado nala sheekaysanayo ilmadeeriya abtiya awooya waa isku nasabkeena ma taqaan nasab ahaan waa isku raacna laakiin xilku ku fadhiyo kursi mareexaan leeyahay ma waa kursi Soomaaliya way mareexaana ma dooran maxamed Abdullaahi Farmaajo Soomaaliya dooratay walibana waxay ku doorteen tirada ugu badan oo madaxweyne 60 ilaa hadda sida ninka loo jeclaa markii la dooranayay haddana wali loo jecel yahay markuu xataa xilka loo jeclaan doono asay barnaamijka Xasan Cali Khayre cimrigeygaan 52 sano ma arkin adeer anu indhahayga kuma arkin xigmaduna waxay ku jirtaa qofka markuu muslim yahay inuusan xuduudda muslimka ka gudbin markuu Soomaaliya inuusan xuduudda Soomaaliya ka gudbin markuu dhaliyo iyo ehli daris yahay sida hadda aniga adigu nahay waxa weeye inuusan xuduudda ehelnimada iyo raximka iyo dariska iyo dhalyada inuusan xuduud bal inuu ka soo gudbin oo suu rabo u hadlin oo suu rabo u soconin oo wixii uu rabo u san sameeynin laakiin inuu quraan ku socdo inuu xadiis ku socdo inuu mataqaana aqliga bini aadamka oo la isku raacsiga shaqeynay ku socdaal raba madaxweynuhu waa wareegto kursiga hadda markii u dhamaatay xilligiisa maxamed Abdullaahi Farmaajo haddaan dib loo dooran anigu waxaan jeclahay in Afrika loo doorto 8 sano inuu hayo baaban anigu jeclahay oo hadii la raacad bishid maxaa kula quman madaxweyne maxamed Abdullaahi Farmaajo Afrika la loo dooran ilaha waxaana u leeyahay waxa weeye markii December 31 xabadu ay bilaabatay anoo xamar jooga ilaa markii ninkan la doortay sidii shaqada u qabtay madaxweyne ka horeeyay oo qabta ma jiro barnaamij qabtay ma jiro Xasan Khayre labada sano joogay barnaamij intuu qabtay ma jiro qofkana waxaan ku abaal marinaynaa wixii amal ah asagu u qabtay oo waliba amal saalix oo fiican intuu hadda farmaajo qabtay aniga Soomaaliya 3 sano ugu dambeysay 91 ka soo tagay dibna ugu ma noqon marka ugu dhawaan Nairobi tagay adaa intaas joogay adaaba hadda xamar iyo Soomaaliya dhul Soomaaliya cawa ka yimid gaalkacyo iyo garow adaaba iigu xoogaashay intuu qabtay ina farmaajo adaa iga badiyo laakiin inta anu tiifiyada ka qabsada ka arkay intaas ay ugu filan oo ah inuu maxaabiisi soo daayay inuu gabrayo wixii la mid ahaayo dhiig miiratada ahaayo Soomaalida ee bastoolada xunta inta ma taqaana la soo baxa dalka ku cabsiinaya wadan ka saaray inuu maxaan ku raahdaa shaqaalihi mushaar u qoray inuu kala dambeyntii iyo cadaaladii soo celiyay inuu ciidankii tababaray inuu xiriirkii caalamiga ahaa kor ka dhigay in hadda lacagtii la sameeyo bangiyada adduunyada ay deymihii cafinayaan inuu shirkadihii ma taqaan shidaalka la heshiiyay inuu wadankii maalin kasta uu rabo madaxtooyada intuu ka qaado dawladnimada u geeyo balcad u geeyo jawhar u geeyo buulabarda u geeyo beledweyne u geeyo dhuusamareeb u geeyo gaalkacyo u geeyo ma taqaana garowe u geeyo boosaaso u geeyo meesha laascaanood u geeyo buuhoodle u geeyo burco u geeyo hargeysa u geeyo Djibouti u geeyo kilka sanaad u geeyo NFD shantaba u xoreeyo ayuu ku haminaya adna waxaad ku haminaysaa inaad madaxtooyada weerarto adoo raba inaad kursiga farmaajo aad ku fariisato jabhadiina USC oo ka tirsaneed waad weerarteen maxamed Saabare maxaa soo kordhiseen waxaa soo kordhiseen afartiiniba SNM waxay maanta hargeysa ku hayso waan garanaynaa waxay ku haysaa calankii buluuga Soomaaliya iyo kii 18 ma taqaan may la sameeyay baa labadaas la kala raacsan yahay yaa kala raacsan SNMT oo kala raacsan waxaa la marayaa Puntland
in dadku wixii ka soo horjeeda Soomaalnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka wixii ka soo horjeeda inay diidan yihiin xoogaa yaroo fara badnayna SDF ka hartana inay jabhadii weli ay mataqaana cirka u baryahayaan gacmaha taaganayaan ku hayaan allow isb noo soo celi ilaan xaraan ku naaxiyo weeye oo xaraan ku naaxi bay rabaan USC xamar fadhido hadda xamar haysatana oo ku bootaysa inay xamar hayaana waa saas oo kale ayagu laba ay kala jaban yihiin wax horumar iyo wanaag iyo khayr raba oo wixii dhibka ilaahu naga saar dhahaya ya xoogaa koox xaraan ku naaxa oo sida ku ducaysanaya 90 dib loogu noqdo oo madaxtooyada la weeraro oo qabiil la isku qasho oo wiilku abtigi dilo ma taqaana odaga sodogii u dilo ma taqaana wiilku sodogu iyo odagii sodogiisa u dilo waana tiro yar waxaa timaada Kismaayo axmedooba hadda wuxuu taagan ilaahu faryar biixi ilaahu aan ka baxay iyo ka taaganta dadkii oo dhan ba hadda ka soo horjeeda marka wuxuu sii joogaana waa maalmo tirsan axmedoob iyo jabhadiisi SBM marka annaga haddaan Soomaali nahay indhaha annaga ku aragnay 29 sano baan jabhad waxay tahay jabhad qabiil oo reer galbeedna ku sii lifaaqan yahay oday boorso wata oo inta reer galbeedka boorso lacag u dhiibaan qabiilkiisa dhahan jabhad ka dhig amxaarna aad siya barana weerar xunka Soomaaliya dil waan soo taagnayn xamar baan soo taagnayn annagoo sarkaal sara hadeertaan baan London Ingiriis kala hadlahaya anu garku cad iyo oday waayeela marka waan naqaana jabhad waxay tahay waan garanayna waa wax laga acuudu bilay sida ibliis acuudu billahi min ash-shaytaani rajim markii liira قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بالله سيد إبليس لوجا أعوذ بالله أيها قفك وحجرنا الدين إيمان يا شخصية الله Soomaaliya أيها أفرت شبه وأعوذ بالله SSDF يا SNM يا USC يا SBM sababtu waa midida ay daab keeda hayaan reer galbeedkii kufaarta gaalada ah oo Soomaalida ku dooxan way odaga waayeelka ku dooxan hooyada waayeelka ku dooxan gabadha inanta ku dooxan wiilka shabaabka ku dooxan dhalinyarada oo daad yar ku dooxan ilmaha saqiirka ku dooxan waa jabhadahaas sida ibliis loo nicib yahan idin nicibnahay sida ibliis looga cudu bilisan in kaga cudu bilisana haddana waxaa ilaahay maadis la jooga Ameerikaanka ay xaqayab oo sida shabaabka daroon in ku buufinay afartiina jabhadood xasamaysa marka inta cagaha dhulka dhigtid waaqiciga 2019 Soomaalidu meesha wax maraysa wax ku qaybso haddii madaxweyne Soomaali rabtid xamar tag tartanka gal sidaan hadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne hore oo Shariif Sheekh Axmed hadda madaxweyne marka uu soo noqon u rabaan ana markii kood odaga xaafa halay doortay nasiibkaaga aad ka qaadaysa hadii doorasho laga helan magaaladaas ma taqaana dhinac ka dago muslimkaaga ka mid noqo anaguna hadda waxa rabnaa oday nagu yiraahda oo madaxad oo nagu dhaha adduunkii waa idinka tagay Soomaaliya China la tartama Ruushka la tartama America la tartama Yurub la tartama Iran la tartama Pakistan la tartama Hindiya la tartama dadka bini'aadanka oo inay ma taqaana adduunyada ku noolaadaan sharaf iyo inay lugumaysan dhaqaale samaystaan aqoon yeeshaan nolosha adduunka iska kooban 70 sanadii ku macneeyay ayadaas kooban sida bini'aadanku u tartamayo nolol fiican aakhiriya adduunka inuu qofka muslim ku noolaado qofka gaalka ahuna nolol fiican adduunka inuu ku noolaado saas oday nagu wacdiya oo nagu waaniyaan u baahanahay oday qabiil nagu waani oo baahnin oday jabhada u durbaan tumahayo oo 29 sano ka hor hoog iyo bil la soo maray jabhada dib noogu celiyeen oo baahnin oday madaxweyne iyo qabiil isku lifaaqa oo kala garan waayeen oo baahnin oday naar afuufa oo turumbadii naarta afuufa hayana oo baahnin marka qofkii oday ah oo madaxu cadaaday oo arrimaha Soomaaliya inuu ka hadla rabo waa inuu wax khayr sheega aayad quraan sheega xadiis noo saxiix ama xasan sheega hadal lagu diirsado oo dadka qalbigiisa iyo maskaxdiisa kurinaya oo kor u qaadaya oo horumarinaya oo dadka isku keenaya oo qalbigooda dhayaya oo wixii la soo dhaafay ilowsiinaya oo qalbiga ka xaal marinaya oo wixii halaaga Ilaahayna soo dhaafiyay in laga gudbo ku talinaya odagaas aan u baahana waxa ku soo haray
annagu adigana kuugu xadgudbi mayno xaaf ah habeer giiro abtiyaashana iyo awoyaashana iyo adeerada iyo xaaskanaga iyo mataqaanaa ah dadka aan dad isugu xignana daan reer galgaduud nahay qoladan geedismaba soo gaartaanba degaan ma lihdine annagu waxaan khayr iyo wanaag ahayn uma hayno habeer gidir waana dhaleen waan dhalnay wax kastaan nahay daris baan nahay isku hal wadaan haynaa wadadaasu haddii ay wadadii ficneed oo xaqa noqotana waan wada haynaa khayrku waana soo gaaray haddii waddo xun la qaadana waa nagu wada dhacaysaa oo hadda khayr adiga keligaa inta kuu soo da-ayo roob inta keligaa kuu da-a ninka la yidhaahda xaafow annagana soo gaareen ma jirto abaar inta kugu dhacda annaga nagu dhacayno ma leh isku hal qol baan ku jirnay isku hal tuulo iyo isku hal gobol baan degannahay isku hal naf baan nahay marka adeer hana kala qaybine isku kaayo keenkeen annagu oday wax ururinhayaa rabno oday firdhiya oo wax kala firdhinaya ma rabno oday wax isku keenayaa rabno aniga walaalkayna waa sheekh uwaasnimada waxa u dheer sheekh cabdirasaaq cali mira isagoobaa uwaas dana loo doortay marka annagu uwaasyada mareexaan haddaan nahay oo bari habeer gidir iyo soomaaliya iyo muslimka iyo bini aadankaba waxaan ugu baaqaynaa horumar iyo khayr iyo barwaaqo iyo bashbash marka warkaygii maantay adeer xaaf aan u jawaabahayey oo u kala saarayay farmaajo iyo annaga 1991 iyo 2019 maraykankii jabhadaha caawinayay meeshu hadda taagan yahay xoogaa yaroo geopolitical waa ku siiyay hadday ku anfacayso allahana kugu anfaco annaguna waxaan rabnaa hadda 30 sano kadib in la yidhaha soomaaliya africa iyo asia iyo yurubtiiba waa dhaaftay ameerikaankii ruushka la tartamaysaa ama mataqaanaa kuwaasay wax yar ka dambaysaa baan rabnaa marka annaga muslimada nala weyn soomaalinimada nala weyn ehelnimada dhalashada nala weyn kursigan yar oo madaxweynenimada iyo bangigii dhexe oo soomaaliya oo 4 run ka soo horjeeday qaabkii waagi hore loo maarayn jiray ama la iswaasan jiray waa laga soo gudbay hadda wuxuu marayaa bool lagu rido doorasho oo la yiraahdo qofkii codka u bata baa qaadanaya walow aniga cabdirashiid cali miraa aan qabo ama cabdirashiid cali maxamed aan qabo wadanka hogaaminta culimada in lagu wareejiyo ayadoo waxa bool la sameeynin oo cidna ma taqaan doorasho la sameeynin culimada rabbaaniyiinta in wadanka lagu wareejiyo gabiisa madaxweynaha iyo jaga kasta oo shahaadadan PhD masa degree-ga nimanka reer galbeedka noo sameeyeen oo farsamo gacmeedka oo waxyaalaha naqaribay kamida inta la iska dhiga xagga kitaabka quraanka iyo bukhari iyo mataqaan sahih bukhari iyo sahih muslim tamiiska la soo saaro iyo sunanka in halkaas lagu dhaqo oo madaxweynuhu sheekh noqdo oo barnaamijku sheekh noqdo oo wasiirka maaliyadda sheekh noqdo oo gudoomiyaha baarlamaanku sheekh noqdo oo maxaan ku raad aqalka sare sheekh noqdo oo wasiir kasta sheekh noqdo oo marka waxa lagu hadla qaal Allah ta'ala qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ay noqoto si nabi maxamed iyo abubakar iyo umar waana sida qof walba xaqiisa uu ku heli karo waana sida dhibaatooyinka iyo waxa naaysta looga bixi karo waana sida qofka Soomaaliga ah uu hadda astaantiisa calaamadiisu reer hebel u tahay astaantiisu ay muslim ku noqon lahayd madaxa muslim loogu qor lahaa mu'min wuxuu shaqaysto lagu xisaabtamo lagu amar mariyo hadduu khayr sameeyana khayr laga abaal mariyo hadduu shar sameystana shartiisa laga abaal mariyo barnaamijkaasna kufaarta diidan iyo sidii jabhadahan oo kale afarta oo anu Soomaalida ugu nibcahay iyo wixii ayaga la mido la shaqaysta iyo jawaasiis hadda ciida ka badan marka aniga halkaasana ku talin lahaa haddii Soomaalidu dad miir qaba oo diin leh oo aakhiri ilaahay markay hor istaagaan ilaahay inuu sanaarin ee jannada ay rabaan saasaaba ku talin lahaa siyaasi aan alfaxmal aqoonin dhibaatooyinka Soomaaliya ilaa 60 kila hadda haysata waxa ugu weyn marka anigu aan analysis ka sameeyay niman alfaxmal aqoonin alxamdulillah garanaynin qul huwa la xataa ansixi karin oo kula madaxweynaha ku noqonaya ana adar seen madaxweynaha ku noqonaysa anu xaafid quraan baan faataxan ka bilaa barnaamij baan goynay saan madaxweynaha ku noqonaysa marka adoo alfaxmal aqoonin sa'iishak saad igu noqonaysa mareer hebel baan kugu noqonayaa xigmad هذا حكمت ما هذا حكمت ما نبي محمد مركي إلهي نبي كدقي أظن يرشي بوها إنك سأويس وها ما تقانا
ugaaska iyo boqorka oo reer Maka ahaa odayaashii taajiriinta ahaa waxay dhan wiilkan yarka agoonka miskiinka maxaa looga dhigay mataqaana ee rasuul looga dhigay marka xigmadu quraanka iyo diinta islaamka ku jirta ayaa sunnada nabiga qof aan aqoon muslim madaxweyne uma noqon karo برايم سر ما نقون كرو وسيرو ما نقون كرو هجامي ما نقون كرو شعبكو كم نقون كرو أسرع فرت إن لو في قمال سيدو قف إن الله قعنت الله قبته أباه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله آدي آد بأمها سنتين وركنا أنت عن أوصى تلاقى وإلى تاري waxa uu ku hadlay odagaas baan taraarsiiyay marka intaas maanta noo joogaysaa wa sallallahu ala sayyidina muhammad abduhu wa rasuluhu aad iyo aad baa u mahadsantihiin